مقدشو مسيركي وقارا مقدشو هدوري مغيهي مقدسي صايفتين كما يردق هالذي ربنا ما قتي سحاو كما يردق هالذي ربنا ما قتي سحاو قاركنا الصوماليات ugu horeeya madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo inta kale ee madaxda sida darteed waxa laga maarmaana oo aan rabnaa caawa inaan halkan ka soo jeedino oo dareenkanaga la qaybsano dadka Soomaaliyeed ee madaxdan aan baaq u dirno gobolka Banaadir waa in maqaamkiisa la soo celiyo waa in dadaal gooni iyo juhdi gooni ah la galiyo aniga waxaan ka qaylayna waxa waaye magaaladan dadka ka wada dhaxaysa hala qurxiyo iyo la qurximaayo oo sidaray ku noolaahay wasaqdeeda iyo qashankeeda iyo jidadku xiran iyo jidcadayaashu xiran iyo gabdhiyo duurka ku dhalaaya iyo magaaladii oo laga shaqeysay 3 milyan qofood oo ku nool inay dhintaan dadkina dawladda haday talaab qaada ay tahay talaabta dawladdu ay qaadayso inay wax laaluushto iyo inay qof wax siiso oo ay tiraado naga aamus shaqadeedu dhammaan dawladda intaasay naqatay ay ka raawayso magaran marka dibkaas sidii la isaga qaadi lahayd iyo sida aan uga tashalahayn iyo ilaahay ama hadda leh gobernatooraan soo dooran warqad ku soo magacaabay iyo nin aan la lahayn wariya hadda bisaasi xilkan ka qaada inaan helna ayaan u dagaalamayay qodobka 9aad ee dastuurka kumeel gaarka ah waxa ku qoran caasimada Soomaaliya waa Muqdisho maqaamkeedana waxa go'aan ka gaari doona labada gole maanta waa dhisan yihiin waa labada baarlamaan waxay mushar qaadanayaan almost sanad musharka ay qaadanayaan hal qodob kuma asixin hal qodob oo kamida oo asixiyaan oo ummadaas ay musharka ka qaadanayaan u qabteen ma jirto caasimadina kadalika qodobka 9aad ee 2004 la qoray wali waa sidiisa hal xabad laga bedelin goorta la bedelayo oo aan sugayno ma qorra xilli habal ma ahan 2 sano ka bacdi ma ahan 2030 ma ahan mugdiya ku jira waa dawaalan tahay waxayna ku xiran tahay dadka inta fadhiya iyo dadka la midka ah ka maqan inay u istaagaan oo ay u qayliyaan oo ay raasadaan ilaa ay soo qabtaan ay salka dhulka dhigin ujeedada la leeyahay haddaan idin ogeysiiyo waa inaan orahdhiibana lana ajiiba astaan gaarana leeno lagu aqoonsayo ummadaha banaadiriyada ee la arareedsho ururka la aasaasayo maanta ugubkaana kias waa elebowkayeen labaylaabana kuna tixgeliso xaqa ka maqan dadka u dhashay deegaanka Banaadir xaquuqda ay leeyihiin in la siiyo ayadoon ahaynin xoog waxaan caawa jeclahay inaan codkayga ku biiriyo anigoo jeclay inaan khudbada sii dheereeyo way u taagan yihiin caawa jaaliyada Banaadir ku nool inay helaan xaqoodii waana dalbanaynaa sida u dhaqsiyaha badan in laga shaqeeyo haddii waxa la dalbanayo ay yihiin wax ummad dhan masiirkeeda dawladda uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad aan u sheegaynaa anigoo ku hadlayo magaca Galbaash magaca jaaliyada gobolka Banaadir aan gudoomiye ka ahay magaca jaaliyada Soomaaliyeed ee Western Kent ku nool in aad loogu baahan yahay in la helo maqaamka Muqdisho inay dawladda soo dedejiso inay u ogolaato dadkan inay helaan wakiilo ku matalo waxaan qabnaa dhibaato khaas ah oo dadka Soomaaliyeed aysan qabin waxaan qabnaa musiibo oo noo gaara waxaan maalin walba maqalnaa qarax iyo dad dhibaataysan waxaan dalbanaynaa sida u dhaqsiyaha badan maamul hoose in la helo dawladdu waxaan ka baryaynaa inaynan noqonin sidii dawladda hore mid dhagala oo indhala magaalada Muqdisho ee ku nool oo fadhiyay xarun u tahay in ay xushmeeyaan oo maqaamkeeda ay u doodaan oo ogolaadaan waajib ay ku tahay Muqdisho masirkii u gaara Muqdisho